Axmed. Waxaan ahay xoghayaha Social Science Forum. Sida aan ku badalsanayn bacaawa waxaa maxay ahayd oo qaada dhigi doonaa mashruucii aqooneed iyo aragtiyii bulsho ee Ibn Khaldun. Haddii aan wax yar idinka dabageyay mashruucan caawa wuxuu noqon doonaa kiisii lixaad. Wuxuu ahaa mashruuc aan soo wadnay ilaa muddo. Maxay ahayd waxaan kasoo hadalnay rag door ah oo ay ka mid ahaayeen Edward Saciid, Mach Weather iyo rag kale oo fara badan. Sidoo kale waxaan kasoo hadalnay daraasad Soomaali oo hordhac ah. Marka caawa waxaa inoogu madlan maxay ahayd oo Ibn Khaldun. Sidoo kale mashruucan waa mashruuc ay maxay ahayd iska kaashanayaan Social Science Forum iyo maktabadda Baraarug. Caawa waxaa inoogu qoran inuu maxay ahayd oo inoo soo jeediyo saaxiibkeen Meegaag Maxamuud. Sida aad u wada taqaanaan waa Meegaag, laakiin magaciisa saxda waa Ridwaan Maxamuud Sheekh Maxamed. Ridwaan waa arday wax ka barta dalka Suudaan, gaar ahaan jaamacadda Al-Imaaraat. Sidoo kale Ridwaan wuxuu bartaa maxay ahayd oo kulliyadda management semesterkii ugu dambeeyay ayuu ku jiraa. Sidoo kale Ridwaan wuxuu wax u ka diyaariyey falsafadda iyo manhajka baxsiga. waxa uuna ka dhigtay machadka akademiyadda Nimaa ka faalooda arrimaha islaamiga iyo insaanka. maxay ahayd oo caawa barnaamijkaasaan ku madalsanahay. Si guud Ridwaan wuxuu inoogu qaada dhigi doonaa ilaa 4 qaybood oo ay ugu horeeyaan maxay ahayd oo Ibn Khaldun aragtidiisii ku aadanaa micmaar albashariya ama dhisidda dadka. Sidoo kale aragtidiisii ku aadanaa dowladnimada, iyo sidoo kale aragtidiisii ku aadanaa waxbarashada iyo tarbiyada ama tarbiyada. ugu dambeyn waxa uu kusoo xiri doonaa aragtiyihii Ibn Khaldun iyo tasawufka. Marka waxaan filaynaa inaan toos barnaamijkeena u bilaabano. saaxiibkeen Ridwaan ayaan kusoo dhaweyn doonaa inuu maxay ahayd oo barnaamijka inoo bilaabo. aad baad u mahadsantihiin. mar labaad soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بمحضنا مولا خلقي يومي يا مغان إله باله. أدبن السلام يا أصحاب تقيمة هي قدرين تمضان برياش بشدان قوس عنه. سيدوك الوحين أدو مهنق يا أصحاب سوشيال ساينس فوم يا أصحاب بريرو يوسف عبد الفتاح جمال فيلو يا أستاذ حسن دمان تيناد بصاحب يالو ما سنتين إلهي ذيك عبال مريد إذا لدى ودان وحي إنه عاو بلنسنهاي هدو إلهي سبحانه وتعالى أقراضه إنه فعلين يفاقدات دول دقنو مشروع aqooneed iyo aragtiya cilmiga bulsho uu lahaa Ibn Khaldun. sidoo kale waa iska macruuf marka aynu leenahay 40 daqiiqo ama saacad baynu ku soo koobaynaa mashruuc inaynan ka gaadhayn daafaha iyo dacallada mawduuca oo dhan, balse waxaynu isku hawlaynaa inaynu daamaha qaar booqanno si ay u caddaato fikradda uu socday mufakirkaasi ama filasuufkaasi, kadibna ay noqoto qofkii hore u yaqaanay niqaash, qofkii hadda ay furu tahayna buugaagtiisa markuu akhrisu la hollado oo waxa weeye akhrinta ay ka saacido mawduucaas aynu maanta gelaynaa. haddiinu ku bilowno intaynan waadicda Yuusuf Cabdi Fataax u holladay ka hadalkeeda intaynan ku bilaabin, haddaynu waxoogaa bal halacsanno sooyaalkii Ibn Khaldun weliba si kooban. Ibn Khaldun waa Cabdiraxmaan ibn Maxamed Ibn Khaldun Waliyaddiin. wuxuu ku dhashay magaalada Tunis hilaadii 1332 miilaadiga oo ku beegan 732 hijriga. iyada ayuu ku barbaaray Tunis, waxna ku bartay, ku koray. waxaanu ka khariijay jaamacadda Zaytuna isagoo markaa bartay fiqiga iyo shareecada. sidoo kale wuxuu bartay xadiiska iyo lisaaniyaadka ama luqadaha. Ibn Khaldun wuxuu ka soo jeedaa reer ku astaysan oo ku suntan aqoon iyo ogaal iyo laashimiin. adabka aad waxa weeye wax badan uga diyaariyey. sidoo kale macallimiinna ahaa oo bulshada ku dhex lahaa maamuus iyo milgo iyo sharaf. dowladdana ka soo qabtay xilal waaweyn. sidoo kale culimana lahaa diinta baac ku lahaa. isaga qudhiisu Ibn Khaldun wuxuu soo qabtay xilal, waxaanu galay safarro aad u fara badan oo magaalooyin badan uu ku booqday. xilalka uu qabtay iyo safarrada uu galay waxay u dhoweeyeen bini aadanka, waana ta keentay inay shakhsiyadiisa soofeeyaan. sidoo kale aragtiyihiisii iyo afkaartiisiina wax badan ku kordhiyaan kuna daraan. Ibn Khaldun waxaa lagu ictibaariyaa ama loo qirsan yahay inuu yahay aasaasihii koobaad ee cilmiga bulshada, gaar ahaan qaybtiisan hadda xadiidka iyo u dhigista seesaskii iyo qaybihii koobaad u ka dhaqaaqay. waxaynu ka warqabnaa inuu filasuuf kasta oo cilmiga ijtimaaca ama cilmiga bulshada diraaseeya aragtiya leeyahay. marka aragtiyihii
ugu horreeyey markii dambe u noqday qalin qorashada falaasifadii ka dambeeyey ibn khulduun ayuu lahaa. wuxuu dhigay aragtiyo ku aadan bini aadamka, faalayn iyo faaqidaad, iyo sidoo kale qaabkii uu dhismi lahaa bini aadamku una dhisi lahaa dowladnimo. marka halkaasuu kasoo geliyay aragtiyihii dowladnimada ku aadana. wuxuu ka hadlay tarbiyadda iyo tacliinta, wuxuu ka hadlay falsafadda iyo culumta xiriirka la leh, iyo tasawufka iyo cilmiga lagu diraaseeyo insaanka duunkiisa waxa ku jira iyo qaabka uu dahiri lahaa. ibn khulduun ciddii ka dambeysay markaa u holaday inay wax ka tiraahdo cilmiga bulshadu aad bay ugu farur xiratay oo wax badan bay kasoo dheegatay. ugu horeeyo caalimkii faransiiska ahaa ee cilmiga bulshada aadka u diraaseyn jiray Auguste Comte, oo runtii in badan ku taasuray kuna keena xidhay afkaartii iyo aragtiyihii uu waday ibn khulduun. xaadiso ama dhacdo waqtiyada kamid ibn khulduun ku dhacday oo ahayd in daacuun qarxay uu ka dilay aabihii iyo hooyadii iyo qayb fara badan oo kamid culimadii uu waxa weeye ka qalin qortay, ayaa waxay keentay inuu aad u murugoodo gaarna noqdo. gaar noqoshadiisaasi waxa ay u faa'iideysay inuu diraaseeyo bini aadanka, u fiirsado guud ahaan iyo qof ahaan waxaa dusha ka muuqda iyo waxa gudaha ku jiraba insaanka, inuu wax badan fiirsasho iyo dhugmo u yeesho. sidoo kale dhammaadkii noloshiisani ibn khulduun gaar buu noqday si uu uguba tafaruqo amaba gaar ugu noqdo diraaseynta cilmiga bulshada, isagoo markaa usii maraya cilmiga inuu ka eego dhana fara badan iyo xagla fara badan, ka eegaya bini aadanka sooyaalkiisa iyo taariikhda uu leeyahay, qaabka uu u saameeyo qofnimadiisa, uu qoro hiddaha iyo dhaqanka uu leeyahay, qaabka uu wax uga noqdo, deegaanka uu degan yahay bini aadanku iyo qaabka uu ugu nool yahay ama shaqooyinka uu ka qabtaa, qaabka ay qofnimadiisa uga soo muuqato, rumaynaha uu aaminsan yahay iyo ictiqaadaadka uu bini aadanku waxa weeye qalbigiisa iyo caqligiisa ku haya, qaabka ay ficilkiisa asmiya eeda labadaba uga soo muuqato. sidoo kale ibn khulduun wuxuu aad u faaleeyey dowladnimada oo uu ka sheekeeyey qaabkay ku dhismato, maxay dowladnimo ku dhisantaa, maxay ku adkaataa ee xuduudeedu ku xoogaysataa, maxay ku wiiqantaa, hadhowna maxay ku duntaa. markaynu dowladnimada eegayno waa inaynu sheegnaa ibn khulduun waqtigii uu noolaa oo ahayd waqtigii ay dowlad cabaasiya ama alkhilaafa alcabaasiya dhacaysay, ay ku dhacaysay gacantii tataarka hilaadii 1258 miilaadiga, taasoo ay soo baxeen in madax ay dadkii xoog ku qabsatay, dabadeetana bulshadii dhankii marka laga hadlayo dowladnimadii ay noqdeen kuwa kaba qaada oo ka baqanaya dowladnimadii inay waxa weeye dhibaato u geysata, dabadeetana guulwadayaala iyo qolo dee laba dilay markii ay kasoo horjeesadeen dowladnimadii waqtigaa jirtay. haddayna eegno dhankii tacliinta iyo bulshada maskaxdeedii iyo imaankeediina ay soo baxeen dad aad u fara badan oo ku qancay khuraafaad iyo mucjisaad iyo sixir. xataa ibn khulduun waqtigii uu noolaa marka laga hadlayo dadka akhlaaqdoodii gudaha ku jirtay iyo duunkooda ku culnayd waxay noqdeen dad keliyaata shakliyaad iyo waxyaabo itusi taabsiya ku meeraysta, aanay xataa waxay qabanayaan ficil ama ha noqdo mid diiniya ama ha noqdo mid ay bulshada u qabanayaan aanay sii daadegsanayn oo aanay gudahooda jirin. sidaa daraaddeed ibn khulduun wuxuu u holaday inuu wax ka qoro bulshadii, isagoo oo doonaya inuu xalka bulshadu ay u baahan tahay qayb ka noqdo. halkaa markay marayso waa inaynu eegnaa dhabadii markaa uu u maray ibn khulduun si uu bulshada xalkeeda wax uga geysto. ibn khulduun wuxuu istusay in sooyaalka bulshadu diraaseeyo, cilmiga taariikhda oo uu diraaseeyaa inay qayb weyn ka noqon karto xal u helidda mashaakisha murgan ee bulshada dhex yaalla, maadaama uu 3 qaybood isku xidhayo ibn khulduun. in la ogaado sooyaalka bulshada ay qayb weyn ka tahay waxa weeye fahanka joogtadeeda. sidoo kale waxaan ku codsanayaa asxaabtoo dhan inay muudka yara galaan si aanu iga tashwiishin. aad baa umahadsantihiin. sooyaalkeeda marka la ogaado bulshada ee la ogaado taariikhdeeda, waxaa suuragal noqonaysa mashaakisha hadda joogtadan jooga in furdaaminteeda waxa weeye loo holado oo qayb laga noqdo, sidoo kale lasii hilaadiyo timaadadeedana mustaqbalka soo socdane wixii laga geysan lahaa bulshada. waaba la is odhan karayaayo warde waqtigii ibn khulduun joogay iyo waqtiyadii ka dambeeyeyba niman sooyaalka iyo taariikhda diraasiyey waa joogeen oo mu'arikhiin ku suntanaa. muxuu laakiin kaga socmay ibn khulduun? 2 qodob ibn khulduun uu kaga socmay dadkii waqtigaa joogay ee sooyaalka diraasayn jiray. qodobka koowaad waxa weeye inuu kala waabay ibn khulduun waxa loo yaqaano taariikhda ama sooyaalka iyo falsafada sooyaalka ama falsafada taariikh. oo sooyaalku waxa weeye in la soo taxo kaliya dhacdooyin ku daadsan tagtadiina soo martay 1980kii waxa dhacay, 1970kii waxa dhacay, 1999kii hebel dilay waxaa saa dhacay. in la soo taxo sooyaalkaas ayaa la yiraahdaa taariikh.
laakiin ibnu khaldun taa uu ka waabtayo wuxuu galay inuu diraaseeyo falsafada sooyaalka isagoo dhowr qaybood meel ka eegaya waata koowaad isagoo eegaya marka uu dhacdo soo qabto xaaladii dhacdadaasi ay dhacday facii noolaa ama jiilkii noolaa qaabkii uu ahaa xaaladoodii fikir xaaladoodii aqooneed xaaladoodii dhaqaale inuu diraaseeyo dhacdadani dadkii ay ka dhex dhacday habkii ay marka koowaad u astaysanaayeen ee u uumanaayeen ta labaad inuu ableeyo ibnu khaldun waxa weeye ka fikirka marka uu helo sooyaalka dhacdo ku jirtay gudoomiye laguma maqlo codkaas ka xirtay hadda ma la maqlaa hadda ku maqlnaa si fiican hadda ma la maqlaa ibnu khaldun oo wuxuu kala qaaday sooyaalkii iyo falsafadii sooyaalka ta labaad uu ku socmay aynu kaga dooran karayno dadkii waqtigan noolaa taariikhda diraasayn jiray waa qodobka labaad ee ah inuu aad isugu luray ama isugu hawlay ibnu khaldun isku dayga sabab u helidda dhacdooyinka jiray marka aynu soo waaridno taariikhda iyo sooyaalkii jiray ibnu khaldun wuxuu ku darsaday inuu baaro waayo bay u dhacday sababtan waayo maxaa keenay inay sababtan dhacday maadaama uu aaminsan yahay dib loo qaadi doonaa marka aynu diraasaynayno ibnu khaldun iyo cilmiga ku aadan bini aadamka dhismihiisa uu aaminsan yahay wax kasta oo dhaca inuu malag iyo sabab leeyahay suu haddaba dhabada uu ibnu khaldun lugta saaray uu welib keeno wuxuu maray qodobo oo dhigtay waata koobaad dhugma yeelasho iyo fiirsi dheer waata koobaad ta labaad baaritaan caqli ku salaysan in wax kastoo la baarayo caqli lagu saleeyo oo aan wax kasta oo nalagu sheegay in sooyaalkii ka dhacayba aynaan isaga halgaadin oo inaan iska qaadan saddex baaritaan wax golo iyo goobjoog uu ahaa qofka ibnu khaldun wixii uu golo iyo goobjoog u ahaa inuu baaro marka koobaad waa ta afaraad haddii looga maarmi waayo ka hadlinta ama ka warraminta dadka khibradda u lahaa ee welibna kalsoonida lagu qabo iyadoo taa qudheeda sees looga dhigay waxay sheegayaan in loo bandhigo caqliga tashanaad isbarbardhig in la sameeyo marka xog la helo ku saabsan sooyaalka in isbarbardhiga la sameeyo oo la yidhahdo waa xogtan halka baynu ka helnay xogtan halka baynu ka helnay isbarbardhig aynu suubino wata lixaade in dhacdooyinkaa jira lagu eego joogtadii waqtiga ay joogeen oo wax dhacay waqtigii cabaasiyiinta aynaan 2021 hadda ku eegin wax dhacay casra tanwiirkii reer galbeed inaan hadda eegin qaabkii ugu suntan waayo waxaa jiray xaalado nafsiya xaalado wacyiya xaalado fikir xaalado dhaqaale oo kalifay inay waxaas dhaco marka haddii laga soo jaro xadaskii ama dhacdadii taariikhiga ahayd waqtigeedii ay ku dhex dhacday haddii laga soo jaro fahankeedii baa adkaanaya laakiin marka la fahmo in maanta qofkan uu biyo cabay ama uu dilay qof misaalkaas ka yaro xooganay haddii uu qof dilay qofkani haddii la ogaado sababihii keenay dilka iyo waqtigii la joogay dilku wuxuu ka ahaa iyo dadkii wacyigoodii uu samaysnaa markaas la fahmi karaya sababtii keentay dilka marka waa qodobadaas soo dhigtay ibnu khaldun marka koobaad siduu u galo cilmiga taariikhda iyo diraasayntiisa waana fikradda ugu weyn ka faa'iideyno marka koobaadba hordhaca aynu samaynayno waxaynu kala soo bixi karaynaa casharka ugu weyn ee ah marka aynu rabno inaynu wax diraasayno aynu baarno gaar ahaan markaynu wax ku diraasayno cilmiga bulshada waayo cilmiga gacanka qabadka ah ama alculuum tadbiiqiya waxaan loo yaqaanaa iyagu waa 1+1 waa 2 marka laakiin marka la diraasaynayo cilmiga bulshada waxay u baahan tahay marka koobaad in la dhigo sees laga dhaqaaqo adag almanhajiya saaxiibkayo faysal mustafa aw falilooba maqaaxiya suudaan marka la fadhiyo ee qof fikrad soo tuuro aad ugu celcelin jiray kelmadda war manhajiyada ka dhaqaaqaysa waa maxay maxaad doonaysaa in aad ka dhaqaajiso fikradaada marka ibnu khaldun wuxuu aad isugu dayay in marka koobaad sameeyo qodobo uu ka dhaqaaqayo si uu u baaro sooyaalka haddii aynu gudagalno saddexda qodob aynu rabno inaynu insha allahu tacaala mawduuceenan aynu wax ka nidhaahno oo kala ah alcimraan albashari dhismaha bulshada dowladda iyo tarbiyada iyo tacliinta tasawufka waa ka qoray insha allahu tacaala waanad hesheen asxaabtu waxaan ku faafiya 30 bog aan ka qoray way ku qoran tahay laakiin waxaan u arkay isaga xiran yihiin kana cudarafiya isaga falsafada qaabku uu qaybiyay uga hadlay marka saddexdan haddii aynu ka fahanay ibnu khaldun waa ibnu khaldun kama gaarino wuxuu ka hadlay oo dhan inuu ka hadlay falsafadu
wuxuu xisaabta wuxuu ka hadlay mantiqa wuxuu ka hadlay axyaaga cilmi falak uu ka hadlay biologiga cilmi falak uu ka hadlay dhaqaaluhu ka hadlay culum fara badan buu Ibn Khaldun ka hadlay laakiin saddexdan ah dhismaha bulshada ka qof ahaaneed iyo ka guud ahaaneed dowladnimada qaabkay ku hana qaado waxay ku quweysato waxay ku wiiqanto iyo waxay ku dhacdo iyo sidoo kale tarbiyadda iyo tacliinta qaab isku xidhan qaabkii baa loo heli lahaa qof waxbarashadiisiina waxa weeye meel ka gaaraya si ay hadhow intifaaceedu usoo baxo tarbiyaddii iyo dhaqankii iyo suluugii qofkani ay u samaanayaan in wanaagsananayaan haddiiba la isweydiiyo waayo baynu dooranay saddexda horta waata koobaade in qofka la fahmo waxay ka mid tahay xeerarka Ibn Khaldun dhigayane waxay keenaysaa qofka marka la fahmo xaglaha ku xidhan oo dhan sooyaalkiisii iyo qaabku u noolaa iyo say u saameynayeen waxyaabahaas oo dhan iyo wuxuu aaminsanaa iyo qaabka ay uga soo muuqanaysay marka taa la fahmo waxaa ka dhalanaysaa in qofkii ay fududaato in loo sameeyo hannaan dowladnimo ay isku maamulaan marka la fahmo bulshada Soomaaliyeed sooyaalkeedii siday ahayd aragtihii iyo afkaartii ku soo darriyey iyo qaabkii u sameeyeen ayaa waxaa ka dhalanaysa iyo shakhsiyaddii weliba ka soo dhex baxday fikradahaas ee innaga ah ayaa waxaa ka dhalanaysa in loo sameeyo hannaan dowladnimo iyadoo cidna loo dhiibin oo la odhan ordan loo soo sameeya si gaara ta saddexaadne waxayn saddexda saas isugu xidhay markaa fahankii bulshada ayaa dowladnimo ka dhalanaysa ta saddexaadna waa tarbiyaddii iyo tacliintii oo marka dowladnimo iyo la helo deganaanshiyo ayaa tarbiyaddii iyo tacliintii midhaha keenaysay ee lagu sii hodmayey wanaagsanaanayay ay ka dhalanaysaa afeef ahaan haddii hadal hortii afeef la dhigo waynu isku khilaafi karnaa marka laga hadlayo Ibn Khaldun waxyaabaha uu saddexdaa ku dhex guray markuu ka hadlayo dhismaha qofka wuxuu ku dhex guray waynu isku khilaafi karnaa dowladnimada iyo waxa uu ka yidhi nadariyadiisa waa aragtidiisa maaha joogtada qaabkii uu waxa weeye ugu dabaqay laakiin waa aragtiyihii kulliga ahaa oo dhigay sarsare markay dowladdu doonaysa inay hirgasho tarbiyadda iyo tacliinta saddexdaaba marka aynu eegno waxyaabaha ku guda jira waxyaabaha qaarkood waynu ka goos qabsan karnaa waana caadi laakiin waxaynu usoo darinaynaa una diraasaynaynaa Ibn Khaldun iyo mufakiriinta kale ee cilmiga bulshadaba inaynu fahanno xaglahay wax ka eegeen welibana xaglaha Ibn Khaldun ka eegay inaynu aad u fahanno oo ah qofkii inaan lagaba tegaynin noloshiisii oo dhan maadaama wax kasta oo yar oo qofka agtiisa yaala ay saameyn toos ku leeyihiin ama saameyn dadban inaynu diraasayno xataa cuntadiisa qofka waxa uu cunaya qaabka uga soo daahirayso guud kansare iyo duunka hoose labadaba marka waa inaynu qodob ka baraarujinaa ah fikradaha qaarkooda ku jira qoraal ahaanna markii aan qorayay waan ka goos qabsado qaar baan calaamadiyey haddana qaar baan ka goos qabsan karaynaa niqaashka ama gorfeynta hadhow dhici doontaana way iman doontaa fikradda aynu imka usii soconnaa waa xaglaha uu Ibn Khaldun wax ka eegay qaarkoodna way ku waafaqaynaa insha allahu tacaala aynu ku bilowno Ibn Khaldun iyo dhismaha bulshada waxa uu ka yidhi xeerkii aynu horena usoo sheegnay ee ahaa Ibn Khaldun inuu dhigay marka koobaad xeer ah wax kasta oo joogtadeenan dhacay waxay lahaayeen sabab tagtadeena ku jirtay sidoo kale dhacdada hadda joogtadeenan dhacday waxay sabab u noqon doontaa dhacdo hadhow dhici doonta saddexdaas saas isugu xidhan dhacdada hadda dhacday waxaa sabab iyo melag u ahayd mid hore oo tagtadeena ka mid ahayd iyada oo joogtadan joogto oo dhacdayne waxay sabab u noqon doontaa mid timaadadeena soo socota dhici doonta xeerkaas marka koobaad ku gelaya Ibn Khaldun diraasaynta cilmiga bulshada dhinacyo fara badan buu ka eegayaa qaarkoodna hore aynu soo sheegnay kow wuxuu ka eegayaa deegaanka ay bulshooyinku ku dhaqan yihiin miyi iyo magaalo qaabka uu saameeyo qofnimadooda aragtiyahooda waaweyn aaminaadahooda iyo habla dhaqankooda intaba sooyaalka iyo taariikhda ay bulshooyinku leeyihiin xaaladda dhaqan dhaqaale ay bulshada ku jiraan hadday dadku wanaagsan yihiin xaaladooda dhaqaale oo ay ladan yihiin iyo haddii ay liitaan oo waxa weeye ay yihiin dad waxa weeye fuqaraa qaabka ay u saamayso ee shakhsiyaddooda uga soo muuqato shaqooyinka ay dadku qabanayaan hadday yihiin falato hadday yihiin dhaqato hadday yihiin dabato hadday yihiin ganacsato haddii waxyaabahaasoo dhan ay yihiin qaabka ay uga soo muuqato shakhsiyaadkooda iyo habla dhaqankooda iyo ereygooda iyo asmadooda intaba cuntada ay cunayaan iyo qaabka iyadana uga soo muuqato intaasoo horta ka eegaya cilmiga bulshada gaar ahaan marka lagu diraasaynayo qofka iyo dhismihiisa xeerar buu dhigay marka laga tago xeerka guud aynu hore usoo sheegnay Ibn Khaldun uu ku galay cilmiga diraasaynta dadka uu ku galay waxaan anigu aaminsanahay in xeerarkani ay 100 jeer ka muhiimsan yihiin waxa dambe uu sheegi doono waayo xeerarkan haddii aynu ku goos qabsano oo aynu ku adkaysano ayaaba laga soo tuujin karayaa fawaa'id iyo faa'iidooyin fara badan oo hadhow aynu kusii geli karayno inagu diraasaynta shakhsiyaadkeena iyo bulshadeena iyo cidda kale inaga mudan inaynu diraasayno xeerarka uu dhigay Ibn Khaldun si ugu diraaseeyo cilmiga dhisidda bulshada ama qofka ta koobaad dhacdooyinka inoo muuqda waxay sal ku hayaan sababo
kow laba sababahaasi waxay saameyn toos ah ama dadban ku yeeshaan bulshada saddex waxaa lagu ogaan karayaa sababahaas baaritaankooda in la ururiyo wacaal iyo xog fara badan si loo helo kadibna la baaro sida ay isugu xidhan yihiin wacaashaas iyo xogtaasi afar bulshooyinka isku eg ee kasoo ankumay ama kasoo bilowmay qaabab isku eg waxa qabta xeerar isku mid ah haba kala waa iyo waqti duwanaadaan bulshadu haddii ay kasoo wada samaysmeen meel qura hab isku egna ay usoo samaysmeen haba ku kala duwanaadaan waaga iyo waqtiga ay nool yihiin xeerar isku mid ah ayaa qabta waa afar shan bulshooyinka waxay isla bedelaan kolba xilliga iyo goorta ay joogaan waqtiga iyo waaga ay nool yihiin bay isla bedelaan ma jiraan bulshooyin dhan kastaba sugan oo saa u taagnaada oo marka la diraaseynayo hal mar diraaseynta loo soo saaro dabeetana qaabkaa ku hirgala dhammaan ficahooda oo dhan ama ajiyaashooda oo dhan mar kasta bulshadu waxay isla bedeshaa waqtiga iyo waaga ay nooshahay dhan kastaba dhan dhaqaale dhan fikir dhan aaminaadeed dhan dhaqan dhan kastaba lix oo ah xeerka ugu dambeeya xeerarka bulshooyinka qabta waxay ka dhashaan bulshada qudheeda mana aha wax go'an oo meel yaalla way isbedeli karayaan mar kastaba xeerarka bulshada qabanaya taasi waa xeerarka uu ku bilaabay Ibn Khaldun inuu ku diraaseeyo waxa weeye cilmiga bulshada markii uu gelayay gaar ahaan diraaseynta qofka xeerarka isagoo ka dhaqaaqaya gaar ahaan xooga saaraya deegaanka ay dadku ku nool yihiin oo diraasadiisa ka bilaabay deegaanka ay dadku nool yihiin iyo qaabka ay u ableyso qofnimadooda ayaa wuxuu Ibn Khaldun leeyahay waxaynu kala saaraynaa dadka qaar ku nool miyi iyo qaar ku nool magaalo dabeetana waynu ku diraaseynaa habkaas wuxuu ka bilaabayaa inuu horta marka koowaad bini aadamku yahay noole bulsheed kayn ijtimaaci u baahan bulshada si ay isku garabsadaan si ay isku difaacaan si ay isaga dhiciyaan wixii waxa weeye ka awood badan iskuna ahaadaan oo isku waxa weeye isla joogaan waana mid ka mid ah qeexidaha ama qeexaanaad taariifta qeexid taariif waa qeexid qeexiyadaha la saaro bini aadamka ama insaanka al-insaan kayn ijtimaaci macnaheedu la isku waafaqsanayn oo de waa kidaa Cabdiraxmaan markii uu taariifinayay bini aadamka lahaa al-insaan kayn akhlaaqi mar kale waa kii markii uu taariifinayay Immanuel Kant ma filaya taqriiban lahaa al-insaan kayn aqlaani marka la isku waafaqsano kulley waxaynu ku taariifinayna bini aadamku wuxuu yahay oo waxay u khuduucaysaa mar kastaba ama sal u noqonaya aaminaadaha dadka iyo waxa ka dhex guuxaya duunkooda iyo maskaxdooda laakiin si guud Ibn Khaldun xeerkaas soo dhigay inuu ku diraaseeyo dadka deegaanka ay ku nool yihiin dabeetana eego deegaankaasi uga soo muuqanaya garaadkooda gudashadooda xileed guudkooda iyo guud ahaan dhaqamadooda kow haddii aynu ku bilowno baadiyaha iyo qaabka uu diraaseeyey Ibn Khaldun waxay ka bilowmaysaa inuu qeexay waa maxay bulsho ku nool baadiye bulsho ku nool baadiye waxa weeye waa bulsho meel ku wada dhaqan iska kaalmaysta dhismaha quudka iyo hawlaha kale inta ay ku ilaashamayso noloshooda oo kaliya aan lahayn wax dhigaan iskaashada isu yimaada iskana kaashada sidii ay u hirgelin lahaayeen noloshooda maalinlaha ah ama usbuuclaha ama billaha ah aan ka sii badnayn oo aan dhigaal fara badan lahayn waxay kaga soocan yihiin reer magaalka dhaqanada shakhsiyaadka iyo dabeecadaha intaba dhaqanadooda iyo shakhsiyadda qofku leeyahay iyo dabeecadaha ay intaasi dhalayso ayay kaga waaban yihiin reer magaalka wuxuu ku tilmaamayaa baadiyuhu inuu yahay Ibn Khaldun seeska magaalowga oo magaalada asaaskeeda iyo dowladnimada magaalada ka dhalata seeskeeduba waa reer baadiyaha waxay ka shaqo dhigtaan reer baadiyuhu laba shaqo sida uu sheegayo Ibn Khaldun kow dhaqashada xoolaha oo saddexda caana macaan ee raacashadoodii waxaanu ku suntayaa dadkaasi inay yihiin reer guuraha aad buu sii faalleynayaa qofkii muqadimada aad u akhriya waqtiyaan inoo saamaxaynay wuxuu ku faalleynayaa inay yihiin dad dagaal jecel oo adag oo qallafsan maadaama uu guuritaankan uu ka keenayo inaan cidna abaallo gelin laba shaqada labaad ee qabtaana waa falashada dhulka beeraha waa dad nagi ah amni jecel shaqooyin kale uu sheegaya Ibn Khaldun oo xirfado ah sida tolniinka amaba samaysiga ganacsiga yar laakiin ma badna isagoo isku dayay Ibn Khaldun u jawaab helidda saamaynta ay ku leedahay deegaankaasi dabeecadaha bulshada waxa uu leeyahay reer baadiyaha qofka ku nool dabeecad uu leeyahay kaga gaar yahay reer magaalka labada ugu muhiimsan waxa weeye kow wuxuu ku sifaynayaa inay yihiin reer miyigu dad u dhow fidrada iyo xalnaanta dad aanay waxa weeye fidradoodu
qowsin fadarow fara badan dad run sheeg jecel dad xishooda dad afkooda toosan yahay oo cay ka maran yahay balse dhaqamadaas wuxuu ku faalanaya ibn khaldun dhaqamadaasi inay inta badan yihiin iskaashiga iyo isaanshaha iyo waxyaabahaasi inta iskaranaysa ee meel wada degan inta kale ee ka waaban ee meel kala degan reer miyigu cadowga isku yahay uu leeyahay ibn khaldun oo wuxuu u holanayaa inuu ka qaado wixii xooluhu lahaa dilo kida taas markii aan faalaynayo warqadda aynu haynay 30 beija suuragal maaha in dhaqankaasi uu ku koobnaado reer baadiyaha qura waayo hadda waxaynu arkaynaa waqtigeena aynu nool nahay in reer magaalku in la wadaago marka ay wada dhaqan yihiin inay xeerar iyo heshiisyo dhigtaan isku hayaan laakiin marka ay la dhaqmayaan dad ka baxsan gaar ahaan dadka aanay sees u hayn dhaqan iyo akhlaaq iyo fidro iyo diin dadka aanay sees u hayn in markay gudahooda iyagu ku jiraan xeerar iyo heshiisyo kala waabaya dhiganayaan ciddii ka baxsanna aan abaal loo gelin haddii xoolahooda tahay hadday tahay in la gumaysto hadday tahay in la baabi'iyo iyo hadday tahay wax kastoo laga samayn karayaaba sifada labaad ee ibn khaldun leeyahay way ku soocan yihiin reer miyigu waa geesinimada maadaama uu leeyahay ibn khaldun miyiga qofku wuxuu ku yahay muhaddad mar kastaba uu caaran yahay oo tusaale ahaan oo kale haddii uu qofkii istifaaci waayo ka qof ahaaneed iyo ka bulsho ahaaneed ba istifaaci waayo dee meeshii waa laga saarayaayo xoolihiisi iyo dadkiisina waa la qaadaya marka qofku wuxuu ku qasbiyay mar kastaba inuu geesinimo fara badan ku sifaysnaado halka cagsiga reer magaalka oo reer magaalkii dowladnimaa jirta dowladnimadii baa dadkii kala waabaysa difaacii dowladdii baa ku jirta qofkii hadduu qof dilo waxaa la leeyahay amaba u geysto dhib dowladdii baa ka faalloonaysa qof aad u xoog weyn baa qof aad u waxa weeye awood daran xidhaya welibana muddo fara badan u xidhnaanayo soo barya u leeyahy warnada jeelka iga siidaa sababtuna waxa weeye dowladdii baa awooddii haysa marka meeshan muhiimadda fara badan lama saaro geesinimada iyo waxyaaba la halmaala laakiin reer miyiga geesinimadu waxay ku jirtaa saysaska laga dhaqaaqaya waana waxay ku soocan yihiin suu sheegayaan marka uu faallaynayo uu ka soo waabto reer miyiga uu yimaado reer magaalka wuxuu ku qeexaya reer magaalku inay yihiin bulsho meelkooda dhaqan nagi ah noloshooduna ay tahay mid heer sare ka ah dhanka dhaqaalaha waa bulsho meel ku wada nool oo ku wada dhaqan nagi ah oo aan guuritaan ku badnayn noloshooduna ay tahay mid heer sare ka ah dhanka dhaqaalaha waa dad dhaqaalaha haysta oo wax urursanaya oo ganacsiya samaynaya sidoo kale dowladnimana samaynaya iyo heshiis dabeecadaha reer magaalka marka uu faallaynayo ibn khaldun waxaad ka dhex dareemaysaa markaad ka soo miirtid inaan ahayn wax taagan wax mar kastaba xaaladda lagu jira la samaysma tusaale ahaan oo kale haddii magaalada ay ka jirto dowlad dictatori dadka ku dhex dhaqan magaaladaasi waxaa kasoo muuqanaya sifaadka laba wajiilanimada kabaqaadnimada guulwadaynta haddii ay dowladdu laakiin tahay mid wadatashi ku dhaqan gashay oo dadkeedii ay keensadeen meesha dadku cise iyo sharaf ay dareemayaan sidoo kale nolol hadday ku jiraan reer magaalku casar lulasho ah oo waxa weeye ay haystaan wax kaste waxa badanaya waxa weeye tarfiiha iyo duntii akhlaaqiga ahayd dadka isku hayso yaraatay iyo maadaama dadkii faraha ka baxayaanoo dee lacagtii iyo baashaalkii iyo boodboodkii inta fara badan lagu hawshanaanayo haddii laakiin yihiin dad dakhligoodu yar yahay waxay inta badan noqonayaan dad nolol maalmeedkooda dhacsado oo dhibbanoo iyaga qudhoodina sagxaddii taabanaya marka in badanne dee mufakiriin fara badan iyo culimo fara badan oo diraasiisa cilmiga bulshadu way ka idhaahdeen wax arrinka ibn khaldunna wuxuu soo qaatay in hadhow marka uu diraaseynayo dhaqaalaha iyo dowladda iyo bulshada uu diraaseynayo inuu kasoo saaro fikrad isku xidhan isagoo ogsoon cidda uu diraaseynaya ciddii tahay ama ha noqdaan dad reer magaala isagoo dhaqamadoodii fahmay ama ha noqdaan dad reer miyiga oo dabeecadahoodii iyo shakhsiyadoodii uu fahmay markuu intaa kaga soo waabto diraaseynta waxa weeye bulshada ka qof ahaaneed isagoo sees uga dhigay ama ka guud ahaaneed isagoo sees uga dhigay deegaankooda wuxuu imanayaa ibn khaldun aragtida dowladnimada oo marka la fahmo dadkaas iyadu dhalanaysa marka dadkii la fahmo sooyaalkiisa uu sameeyey shakhsiyadoodiisa uu samaysay cuntadiisa uu sameeyey oo waxaa laga yaabaa inaynu koobsannay xataa cuntada uu leeyahay dadku haddii ay hilibgeelka aadka u cunaan caanihiisana cabbaan qalqalafsanaan badan baa ka dhalata qalqalafsanaan fara badan baa ka dhalata halka haddii ay cunaan fardahane geesinimo iyo dhiiranaan fara badan ay ka dhalato isagoo tusaaleyaal usoo qaadanayo dadkii cuni jiray geela ee carabta u badnaa iyo dadkii atraagta ahaa ee cuni jiray fardaha iyo qaabkay u dhiiranayeen shajaacada loogu suntanaa wuxuu imanayaa ibn khaldun aragtidiisa ku aadan dowladnimada oo aan ugu arkayo marka laga tago diraasaynta waxa weeye shakhsiyadaha iyo bulshada iyo dhismahooda in laga faallado iyo tarbiyada iyo tacliinta
inay tahay seeska ugu mudan inaynu aadka ugu fiirsano qaabkii buu ableeyay ibn khaldun aragtiisa ku aadan dowladnimada ugana dhiga mid waartay intaasoo qarni oo maanta markaynu akhriyayno 2021 bishii saddexaad 18 inaynu wax fara badan odhanayno sax ibn khaldun waa saxsanay maadaama inta fara badan isku hawlay inuu sees dhigo marka koobaad dabeetana seeskii oo yaala uu joogtadiisii haleeshiyo kaliya tan aanu faalin joogtadiisa filosof kasta oo cilmiga bulshada diraaseeya aragtiyu leeyahay ku aadan dowladnimada laga soo bilaabo falaasifad maalda haddii aanu eegno reer galbeedka ama falaasifad dabiici wixii loo yaqaan la soo gaaro Aflaatoon iyo Aristo oo de Aflaatoon baa afka Aristo inta badan ku hadli jiray uu dhigay Aflaatoon isagoo ku taasursan ama ku saamoobay macalinkiisa Socrates intii ka horeysay 20 jirkiisii ay dhahday 40 jirkiisii fikradii al-Madina al-Fadila oo ka dhaqaajiyay in la helo al-Hakim al-Filosof nin filosof oo xaakima oo dabeetana bulshadii ay isaga sees ka dhigato ay isaga u soo noqoto isaga waxa weeye laga qalin qorto isaguna awood u leeyahay samada la xiriiro iyo markii uu ka tanaasulay oo dhigay dawladda qaanuun uu yiri suuragal ma aha in bulshada saa ku dhaqantee waxa asaas u ah dawladda iyo dawladnimada heshiis la kala qorto iyo qawaaniin lagu kala socdo ilaa loo imaado aragtiyaas si u saameeyeen casrigii dhexe Thomas Aquinas iyo القديس أغسطين سيدي وكلا سامو بين أرسطية أفلاطون يارتيهودي إلا إنه كسو قاري إنه عصرية دي هذا الحداثة وما بعد الحداثة يقاب كيلو أبلا بلي دولة لماذا يفكر ذيك الرقاقي حديا إنه يقندك كالمسلمين تي فلاسفة دي كوكا ينحدي reer galbeedka ibn Sina iyo Farabi iyo Kindi iyo Ibn Rushd ee soo minguuriyay ama Siris waafajiya ibn Aristo iyo Aflaatoon aragtiyahoodii dabeetana kala soo dhaxbaxa aragtiyo joogtadii galisa iyo haday noqoto iyagu falaasfadii siri wada cusub iyo hilin cusub ikhtiraacay mu'tazilada hay Wasil bin Adaa iyo nidaam ay kamid ahaayeen iyo culimadii fuqahada ahaa ee asalka ka dhigay al-fiqh al-usuli ay kamid ahaayeen Maawardi iyo Ghazali iyo Ibn Taymiyyah iyo Ibn Khaldun oo halkan ku diraaseen doonaaba ragga ka hadlay cilmiga bulshada oo dhan mid kasta wuxuu lahaa aragti ku aadan dawladnimada habkii dawlad ku dhisantaa maxaa aynu sameynaa si dawladdaasi u cududeysato maxaa aynu sameynaa dawladdaas aan u wiiqmin haddii ay wiiqanto maxay ku wiiqantaa haddii ay burkeedii iyo dhamaadkeedii yimaadane maxaa looga malaagay sabab dhigaa haddii aynu eegno hadaba aragtida Ibn Khaldun waxa weeye ku aadan dawladnimada waxay ka dhaqaaqaysaa marka koobaad qeexidda waa maxay dawladnimo Ibn Khaldun uu qeexay dawladnimada isagoo ku eegaya ka weyn taariikheed oo sooyaalka sidoo kale kaashanaya diinta iyo mujtamaca iyo iqtisaadka intaba wacaashi iyo xogtii uu hayay walibana fiira weyna siinaya diraasaynta dawladihii jiray ee ka sii horeeyay isaga ama hal waqti haadaan ama ka horeeyaan salaam kale diraasaynta waqtigii dawladda Madiina ee Nabi Maxamed alayhi salaatu wassalaam ulaha iyo wixii ka dambeeyay oo dhan ee dawladaha iyo sidoo kale inuu dhugmo fara badan u yeeshay Ibn Khaldun dawlado ka jiray waqooyiga Afrika oo aad u diraaseeyay wuxuu ka soo miiray qeexidda dawladnimadu waa sidii noola dhasha maadaama uu arkay Ibn Khaldun inay tahay dawladnimadu wax dhasha kobca kaalin gala kadibna gabow iyo dhamaad ka daba yimaadaan waa noole waa sidii noole dhasha kobca kaalin gala kadibna gabow iyo dhamaad ka daba yimaadaan xataa uu mudeeyay waqtiga ay dawladnimadaasi jiri karayso oo ku aastay inay tahay 120 sano Ibn Khaldun waxa uu kala qaaday dawladnimada ama dawladaha jira saddex dawladood kow mid seeska ka dhiganaysa ay ka dhaqaaqayso diinta ama nas quraani iyo dusha qiimanaya waa ta koobaad waxaan leedahay marjiciidiini ta labaad dawlad seeskeedu uu yahay dawladda hore waxay tusaale u soo qaadan kareynaa dawladda Nabi Maxamed alayhi salaatu wassalaam iyadoo Allah fawqa aydiin bay'adu ka dhacaysay xaakim mamkum iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo أساسيات كدولة أساسية جليسو هذي تاي عدالة توزيع ثروات هذي تاي شورى هذي تاي وحيابا كلا أحكام تاي قرآن كا دولة اللي بعده وشيء دولة كلية تلو جليو عقد اجتماعي تذكر قرآن بقرآن يعني يجا قرآن وكان شاكروس كتاب في العقد الاجتماعي حلوك قال لي فصدق عنا دولة نمر وصدق وخلي قيمة صدق حد حوي دولة أنا هي إنه مثالية سيد الدولة دي وأفلاطون كان لي المدينة الفاضل أما الدولة ذاك كوتش تكريته مسكحة الفلاسفة يعني صورة قالها يبقى إن واقع يشوك تشوك اللغة لما البنان وضبط وكو استاتشي
ibnu khulduun dowladnimadaas marka koobaad buu xusees uga dhigay inaanay dowladnimadu ka hirgeli karayn meelaan magaalo ahayn laba sababood awgood kow waa in dadku nagi yihiin si ay dowladnimo u dhalato reer miyigu maaha nagi waa dad guurid inta badan gaar ahaan intooda dhaqatadii waa inta badan dad guura oo calafka iyo carshinka meesha ay ka helayaan baadha sidoo kale seeska labaadna waa in tamaasug jira bulshadu inay haysato bulshada wixii isku haynay dib baynu ka arki doonaa marka uu dhigayo xeerarka ay dowladnimadu ku istaagto qodobada uu waxa weeye u arko ibnu khulduun in dowladnimadu ay ku adkaan karto ay kaalin ku gelayso saddex qodob buu qayminaya saddexdaa qodob saddex waxood buu keenaya waan jeclaan lahaa qof kastaba haddii warqad yaraag taalo inuu sunto hadhow naqaashanaynu eegno faa'iida ahaanna uu hayo kow qodobka koobaad wuxuu odhanayaa ibnu khulduun arrimaha ay dowladdu ku hawlgasho ee ay ku adkaato loogama maarmaankana ah waa arrimo ka dhaca duunka qofka duunka yani gudaha qofka waa canaasir daakhiliya canaasir oo aan la taaban karin canaasirta daakhiliga waxaa uga horeeya waa saddexdii waaxood ee hoos imanayay alcanaasir daakhiliya arrimaha gudaha qofka ka dhaca kow waxaa hoos imanaya alcasabiya wuxuu bixiyey oo aad u diraaseeyay badan qofka ibnu khulduun akhriya ama akhriyi doonaan oo arki doona fikrat alcasabiya fikrat alcasabiya waa maxay waa ku yognaan soomaaliya ereygaas ugu dhow in uu jiro wax bulshadani ku yogon tahay oo ku adkaysanayso oo aan loo kala harin waxaas ha noqdo qabiil waxaas ha noqdo diin ha noqdo dun kale oo dadka isku haysa waa inay jirtaa bulshada wax midaynaya oo dhammaantoodba marka waxaa laga hadla meel uga soo wada jeesanaya ibnu khulduun asaaska dowladnimadoo dhan wuxuu ka dhigay arrinkaas inay jirto bulshada wax isku haynaya ama deegaan ha noqdo ama diin dhanka ilaahay ka timi ha noqdo ama ha noqdo dun kale oo dadka isku haysa ama qabiil ama waxyaabaha kale dadka isku hayn karaya ama fikrado waa in arrini jirtaa dadka oo dhan ay ku qanacsan yihiin gowska dambana ku hayaan taasi markastoo ay xoogaysato ximiyada iyo xiisaha loo hayaa oo markastoo ay dowladnimada awoodaysato markastoo ay fududaatane oo markastoo dowladdu inay hankash tidhaahdo ay soo dhawaato qodobkaas waa qodobka koobaad ee uu hoos keenaya arrimaha aan la taaban karin ee gudaha bini'aadanka dhacay ku yognaan alcasabiya talabaad waa inay jirtaa qancin iyo qasbid sidee yacni ibnu khulduun aaminsan yahay marka ay dowladnimo hirgelayso in dadku ay laba u qaybsamaan qole fahmi karaysa dowladnimo waxay tahay marka arrimaha laga hirgelinaya loo sheegana lagu qancin karayo iyo qolo aanay suuragal hayn inay fahmaan dowladnimada sababo badan awood wuxuu sheegayaa sabab in qofkan marka koobaad baraadkiisa iyo wacigiisu yar yahay oo aan fahmi karin dowladnimadan waxay ku hirgeli karaysa iyo faa'iido u leedahay waxa uu sheegayaa in qofkan uu dana shakhsiya u socdo oo aanu rabinba inay dowladnimo dhisato oo dhanka kale isaga ugu badisiyo burburka haddaba ibnu khulduun wuxuu leeyahay waa inay meesha timaadaa qancin oo dadkan la qanciya haddii dadkan la qancin kari waayo waa in la qasbaa sideeba loo qasbayaa dadkii qaybo fara badan buu sii kala saaraya wuxuu leeyahay kow waa in dad baa jira iyagu keliyata ay ugu badiso in yaroo faraguudkooda loo dhiibo adduunya dadka ha loo dhiibo buu leeyahay dad baa jira iyagu aan faraguudkoodna u baahnayn keliyata inay muuqdaan rabaa ha loo daydaya qaabab yaryar oo aan bulshadiina saamayn iyagina lagaga aamusiinayo oo ay ku muuqdaan sidoo kale dad baa jira aan intaas midnaba rabin oo aan la fahmi karin oo cilinkooda la saari karin dadka waa in la qasbaa buu leeyahay waayaba loo qasbi karayaa buu qofka daawadiis weydiin karaya ibnu khulduun marka koobaad wuxuu dhigayaa xeer weyn oo ah dowladnimadu inay tahay waxa quraya ilaalin karaya dunta bini'aadanimo ee dadka qof kasta oo raba inuu dowladnimada ku ciyaaraana inuu yahay qof ku ciyaaraya bini'aadanimadii iyo jiritaankeedii marka waa in gacanta la qabtaa meelno lagu soo wada jeesada qodobka labaad u dhigayna waxa weeye qancin iyo qasab qodobka saddexaad ee dowladnimadu ay ku hirgasho qofka gudihiisana ka dhaca waa dunta diineed ama akhlaaqeed dadka isku haysa ibnu khulduun wuxuu aaminsan yahay in mar kaste oo dadku akhlaaqiyan u xumaadaan ay soo dhawaanaysa dowladnimada burburkeedii mar kastoo ay dadku akhlaaqiyan iyo diin ahaan u awoodaystaan weliba gaar ahaan damiirka iyo dadnimada qofeed ee gudaha ku jirta ee fidrada ee ku uma bini'aadanka inay awoodaysato dowladnimadaas isagoo muqadimada ka hadlaya muqadimada ibnu khulduun wuxuu leeyahay dowladaha iyo boqortooyooyinka adag ee hana qaada waxa udub u ah diin akhlaaq ama yeedhmo xaq ku sal leh dowlad kasta iyo boqortooyo kaste oo hana qaada waxa seeskeedu yahay diin akhlaaq ama yeedhmo xaq ku sal leh yeedhmo xaqa taasi waa qodobka koobaad qodobka labaad waa arrimo ka dhaca si muuqda u dhaca canaasir maadiya la taaban karayo ay tusi taabsi gelaya oo ay dowladnimadu baahi u qabto si ay u hirgasho kow waa in la helaa bulsho iyo dad si ay dowladnimadu istaagto oo suuragal ma inayna dowlad istaajino iyadoo aanay dad iyo bulsho jirinba bismillah
qodobka labaad waa inuu jiraa boqor ama ra'iis maamulaya dadkii dowladnimadu kama maarmayso in la helo qof dadkii maamulaya dadku iyagu soo dooranayaan haddii uu qasbo dadkii wax badan baa ka imanaya hadhow laakiin dadkii baa dooranaya waa in la helaa qof arrimahoodii maareynaya oo melik ama ra'iisa kana shaqaynaya arrimahoodii saddex waa in la helaa dhul ay dowladnimadaasi ku hirgasho oo dadkuna degan yihiin ay naga ku yihiin qodobkaasna waa qodobka labaad ee arrimaha la taaban karayo qodob saddexaad ayuu leeyahay ibn khaldun waa looga maarmaan marka laga hadlayo dowladnimada dhismaheeda oo ah labadii qodob ee hore mid dhamaystir u ah waa maxay qodobka saddexaadne waa saddex qodob oo iyaguna kasii kooban mid kastaba saddexdii qodob ee soo sheegnay mid kasta saddex hoos imanaya niri saddex waaxood marka qodobka saddexda waaxood ee hoos imanaya waxa weeye kow in la helo askar ciidan difaacda dowladnimadii oo dad badan baa damci dowladnimada dhisantay inay jirto cudud oo tiraahda halkiina jooga oo celisa laba adduun ay ku kala socdaan arrimihii oo dhaqaale la'aan dowladnimadii socomaysaba arrimo badan baa soo bixi doona oo dowladba ay baahi fara badan ugu qabtay inay hesho adduun ka hor arrin ka saddexaad waa in la helo cadaalad qodobka aad ibn khaldun uga hadlaya waxaanu marar fara badan intuu gaar u calmado kaga hadlaya muqadimati ibn khaldun marka uu faalaynayo dowladnimadii waxay ku istaagto in cadaaladda oo la waayaa macnaheedu yahay si toosa dowladnimadii iyo burtay waqtiga doontaa qaato caajilan ama aajilan laakiin mar kasta oo cadaalad meesha tigto iyo sinaan ereygaasa ka weyn cadaalad baa ka weyn sinaanta marar badan العداله مركز توي جرت العداله الاجتماعيه دان كستبا دقاله iyo arin iyo tashi iyo xil iyo wax kastaba inay jirto cadaalad saddexda qodob ee saddexda waxay hoos imanayaan ayuu aaminsan yahay ibn khaldun inay tahay waxa istaajin kariya dowladnimada marka koobaad heerar bay hadaba dowladii martaa waa aaminsan yahay maadaama aynu hore soo sheegnay inay 120 sano ku aastay waqtiga dowladnimada ibn khaldun wuxuu leeyahay waqti dowladnimadaas 120 ka sano ay jirto heer bay martaa heerka koobaad ee marta dowladnimada waxa weeye heer uu bixiyay heerka baraaraha iyo sareynta heerkan muxuu ku suntan yahay isla tashi iskaashi horumarka dhaqaalaha aad u hodma cadow iska caabin aan caadi ahayn oo dadkii oo dhan ay meel uga soo wada joostaan cadowgoodii mid gudeed iyo mid dibed heerka waa heerka baraaraha iyo sareynta waan heerka koobaad markii dowladdu soo dhisanto waxaan aaminsan heerkaas inay aad u weyn tahay waxa bulshada isku haya casabiyada ha noqoto waxyaabaha soo sheegeen diin qabiil iyo waxyaabaha kale bulshada dunteeda isku hayn karaya heerkaas waa heerka koobaad heerka labaad wuxuu bixiyay ibn khaldun heerka kalitalisnimada waxa meeshii ka baxay isla tashigii iyo iskaashigii meesha waxa markaa soo baxay heerka labaad dad guul waday iyo kabaqaad iyo laba wajiirayaan u badan intii dadka ereygood iyo dhawaaqooda meel dheer islahayd gaarsiiyeen waa la cuna duubaya iyo meel baa lagu xidhay heerka labaadna waa heerka saddexaad wuxuu bixiyay ibn khaldun heerka banaanaanta marxalad al-firaaq مرحلة الفرق محو أما هيرك بنات محو كسنتي هي إن حوج الله صاروا مرحلة داس أما هيرك دقالة عنده نلا صاري أو لقول لقاية دقالة قبل كلا بعد إن للفوضين ينرشي أو ولي من الدكتور إنتوا ده فرق بدن وأرديان إنه قف كستاب سيدي ساعان ونقض ما تشاركوا دون عنا كنقض صدق إن دولة عدة هيسا أي أنت فرق بدن هول جلسوا ولا تص جارنا كعيدنك inay dawladaha jaarka la dhoola tusto ciidankooda cududooda waxa weeye lacagtooda iyo waxyaabaha dadkooda inay inta fara badan xoog saarto marxaladda saddexaad ee marxaladda firaaq marxaladda banaanaanta dhoola tus marxaladda afraad waa marxaladda qanacsanaanta wuxuu bixiyay khaldun soo turjumaynayo Soomaali ahaan baynu ka dhigaynaa heerarkan marxaladda afraad waa marxaladda qanacsanaanta marxaladdan waxay ku suntan tahay in madaxweynaha jooga waqtigaasi uu inta fara badan kaliya ta sheego dadkii hore waxay qabteen madaxweynihii horeeyay wuxuu sameeyay madaxweynihii horeeyay wuxuu lahaa dowladnimadeenu waxay sheegtay waqtiga aynu hebel ka libinaysanay waxaas ma inta fara badan laga sheekay laakiin ma jirto waxyaabo lagu talaabsado oo keenaya tanaadka bulshada hadhow iyo waarideedii marxaladda ugu dambaysa ee aaminsan inay marta dowladnimadu wax weeye ibn khaldun heerka takrifalka wuxuu bixiyay heerkan waxa uu leeyahay ibn khaldun waxa lagu baleysmaa damacyada nafta qof kastaaba damaciisa nafeed iska raaca tunti akhlaaqeed dadka isku haysay baa aad u yaraata tumashay tamashleyn iyo ku takrifalaan macquul hayn xoolaha baa dhaca xooli wallaaya waxa lagu beeskareenaya xoolihi meel aan mudnayn lama siinaya meelihii mudnaa ee dowladnimadu ku sii jiri karaysay sidoo kale dadaan aqoon iyo ogaal u lahayn xilalka dowladnimada oo waxba ka qaban kareen ayaa inta fara badan faraha loo geliyay mas'uul looga dhigay warimsayna haysataa qodobadaas marka laga hadlayo mujtamaceena Soomaaliya
heerarkaas waataynu sheegnay wuxuu asaas uga dhigay inay taxnaanayso 120 sannadood 120 sannadood kadib markay heerarka dawladnimadu marto way duntaa buu leeyahay Khaldun kadib ba haddana waxa imaada dad ay jirto wax isku haynaya oo casabiya leh dad diin adag wata oo aaminsan diinta oo naf iyo maal iyo adduunba huray ama dad qabiilkooda aaminsan in jiritaanka qabiilkooda ku xiraya jiritaankooda qofeed dabeetana booba oo qabta dawladnimadii mar labaad ama dad kale oo dun isku haysa ay jirto heshiisan noqota ama fikire kuwii hore markay dumaan kuwa kala imaada 120 sano jira khaydkii wixii isku hayay furfurmo akhlaaqdii xumaato dhicitaankoodii imaado adwaarta ama heerarka ay dawladnimadu martaane intaas ku sheegay Ibn Khaldun kadib wuxuu imanayaa sababaha rasmiga ee dawladdu ku dunto kow wuxuu ka dhigayaa sababaha kali talisnimo markaste oo ay dawladnimadu ka baxdo wada tashi iyo in la isweydiiyo eri u dhiib qori u geey wax lagu gaari waayo ama lagu goyn waayo dawladnimadaas waxay afka u saarantay dunto laba ku talaxtaga baashaalka iyo boodboodka inay bulshadoo dhani uba qaashaarato in qof kastaba iska raacinay duntii akhlaaqeed dinto saddex khalkhal gala arrimihii hore soo sheegnay dawladnimadu ku dhismaysay gaar ahaan ciidanka cadaaladda waanaynu aad u calaamadin eriga cadaaladda iyo dhaqaalaha saddexdaas waxaynu calaamadinaa Ibn Khaldun aad buu calaamadiyay dulmiga wuxuu ka dhigay sayska dawladnimadu ku murto oo dhan haddaynu intaa kaga soo weecanno dawladnimadii waxaynu sheegnay sidii uu diraasay Ibn Khaldun bini aadanka isagoo ku eegaya deegaan reer baadiye reer magaal iyo waxay ku kala duwan yihiin iyo qaabka ay sooyaalka iyo shakhsiyaadkoodu waxa weeye ugu samaysmaan deegaanka iyo waxa soo maraya afkaar iyo arrin ah sidoo kale waxaynu eegnay dawladnimadii wuxuu ka qabay Ibn Khaldun heerarkay marto iyo sababahay ku duuntay iyo waxay ku istaagto inuu saddex qodobeynay oo saddexda qodobna saddex waxood hoos keenay aynu nimaadno qodobka ugu dambeeya ee ah tarbiyada iyo tacliinta Ibn Khaldun muxuu keenay horteedna aynu dhigno faalla yar ama afeef ah Ibn Khaldun wuxuu dhigay marka koobaad saddex arrin oo mid kastaba mid dhalayo ka horeeya hadii la waayana ka la waayo in la helo bulsho deegaankeedu dhisan yahay macnaheedu waxa weeye in la helo bulsho aqoonteed iyo tarbiyadeedu dhisan tahay bulsho aqoonteed iyo tarbiyadeedu dhisan tahayna macnaheedu waxa weeye in la helo dhisme in la dhiso nolol wanaag iyo wacnaan ku suntan saddexda qodob marka koobaad Ibn Khaldun dhigay dhisme bulsheed oo deegaankoodii iyo dawladnimadu dhisan tahay waxa ka dhalanaya dad aqoon ahaan iyo edeb ahaanba u dhisan saddex waxa ka dhalanaya in la helo nolol wanaagsan oo barwaaqo iyo casar lasho ee ku suntan Ibn Khaldun marka laga soo weecdo aaminaadda uu inala aaminsan yahay si kulliyaba wada muslimiinta oo wada aaminsan yihiin in insaanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fidro ku uumay waxa uu aaminsan yahay in laba wado uu bini aadamku ku helo aqoonta fidrada iyo mukmanaadka akhlaaqiga ee ku jira bini aadamka umuhu ku uumay marka laga tago kow dhabada koobaad oo bini aadamku ka helo aqoonta waa dhabada caqliga hadday tahay xirfadaha tajrubada dibbiga qayb ka mid ah medicine sidoo kale buddigna waxay u noqotaa caqligaasi aragtiyaha bini aadamku uu ka aaminayo qiyamkii akhlaaqda maadaama aynu soo sheegnay fidrada caqligiibu marka wuxuu u qaybinayaa Ibn Khaldun saddex qaybood wuxuu leeyahay caqli diyaar waa falgal waa caqliga qofka carruurta ee hadda soo kacaya caqligaas wuxuu diyaar u yahay inuu falgalo laba caqliga labaad wuxuu sheegayaa Ibn Khaldun inuu yahay caqli tijaabo galay dagaal buu galay nabad buu arkay waxa weeye jacayl buu galay nacayb buu galay noloshii buu galay uu soo faysmay caqligaas waa caqli mujarrib caqli tijaabo galay saddex caqliga saddexaad wuxuu ka dhigayaa Ibn Khaldun caqli isweydiinaya su'aalaha jiritaanka ku aadan waayo baan u umanahay halkee baan ka yimi iyo maxaan u socdaa iyo halkeen tagaya su'aalahaasi caqliga mujarradka uu isweydiiyaa laakiin jawaabaheeda waxa laga helaa keliyata naska Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nakiisa ka yimi kaas waa caqliga wadada caqliga waxa lagu helo laba dhabada labaad ee lagu helaana waa culuum ama cilmiyo marka koobaad ba hilinkii
aad u qaadi lahayd helidooda uu jeexan yahay aan kaaga baahnayn fikir fara badan iyo hawlgelin hadhow marka laga tago kusoo kordhinteeda inaad doonaysaan dowlad mooye culumta sharciga oo kale helinkeeda iyo dhabadooda waa waadix hadhow ijtihaadaadka si aan hadhow laisku qalad fahmin la moodin inaynu jarayno ijtihaadka sidiisa hadhow marka cilmigii la barto ee la sugo tafsiirka iyo cilmigii xadiiska iyo fiqiga iyo waxyaabihi la halmaalay oo dhan in hadhow tajdiidkii iyo ijtihaadkii halkaas soo gelay sidoo kale cilmiga luqaadka cilmi alsunka labadaa dhabo ayuu u arkaa ibnu khulduun in marka koobaad horta aqoon lagu xiro aragtida tarbiyadda iyo tacliinta ee ibnu khulduun leeyahay waqtigii hore ee uu jiray isagu joogay waxay ahayd mid kala dacdaadsan oo kala firiqsan way jireen dad aragtiyo fara badan kala tarbiyadda waqtigiisa iyo waqtigii ka horreeyay laakiin muu jirin mufakir ama aqoonyahan isu geeya oo qaab isku xiran usoo gudbiya qaabkeebuu qofku aqoon iyo tarbiyad isku xiran u heli karaya hadda markaynu leenahay tarbiyad qoritaankeedu aad buu fudud yahay wada waxaa laga yaabaa intanan caawa suumka ama leef ku wada jirtaaba inaynu soo saarno aragti tarbiyadda oo isku xiran qurux badan laakiin dhaqangelinteedu aad buu adag yahay waxaan xasuustaa Jean Jacques Rousseau kitaabkii uu qoray Emile ee uu ku sharaxayo bini aadamku markuu uurka hooyadii galo qaabka loola dhaqmayo ilaa marka uu gaashaanqaadka noqdo qaabka loola tacaamulayo وانتاس أنا إسكو حرية وانت أنا كل حضريه وحنايه وحعبيه وحاخريه قوت وحاخريه أصحابته يلاني قاب كلا ولا عدة تربية عدة تاي عدة شعيل فربنا وهاي سيد والد كذا مسوى عدة شعيل فربنا وهينو مرة قاعد كل ديران كراسين غير بعض وهي باسو نبوك هذايا توجس أفر عرورة أما شن عرورة تقريبا بقولها يو متكودنا وتربيتين كده يقول رجع كتير ابن خلدون يعني شيء إن التربية دي واحد وبعدين ترجعين واحد وبعدين تشوف تدين لا يعني أنا راهنا وده الصوماليات وإنه كذا لنا يبتشر يو ممكن إنتنا إنه قانة محينه قدرنا محينه كهفنا محينه سكموسنا عرفت كذا تربية دي تعليم تيكو أدن فكر كابن خلدون وحا ومبدأ أساس كأكد يا ابن خلدون إن كانوا قلين تربية دي تعليم تدور مبدأ أما دور قيدوية حير حير كوباد أساس كأقوم كستابوا فكر بوامسيه ابن خلدون فكر لغا فكرة شيرتانك فكر يدوم لو يشون ولا كلاين ولا حيران فكر يدوم لو يشون ظروفها يديغان كاين كل قناها sababtuna waa in la soo tuujiyo khibrad iyo tajrubo loo dhitay dadka inaga dambeeyay faaxa soo socda laba baridda iyo barashadu waa wax ku kooban bini aadanka oo aan la wadaagin noolaha kale qaab amaraysan buu socda laakiin inuu qofku wax barto tajrubo dhiteeyo waxyaabaha qaar koodna dadkii baro oo uu gudbiyo waa ficil insaani wax ku kooban bini aadanka saddex wax barid iyo wax barashadu waa mabaadi'dii koobaad ee inta la gelin tacliinta iyo tarbiyada waxbarid iyo waxbarashadu waa ficil u baahan in la sugo cilmiga qofku uu dhiganayo waxa uu soo gudbinayo ka hor waa inuu meel saaraa waa noqdo muhiim markaan ka hadlayno waxa weeye cilmiga bulshada iyo culumta kalaba qofku inuu marka koobaad juhdi iyo waqti fara badan iskaliyo qofna ma jira saqafka cilmiga taabanaya laakiin qofku waxba la harin إلى آخر السير الشيخ مصطفى أيوة أدعو عليه وردت عقوش ذا احترامنا إن قف وحكستو وهاي أنت تمرتي سيتاكتي سبنان كانوا تبتني على دوار أنت نوودي الدعدي قون يوجا البدني محط قدر يسا وأخذوا كسب حاجة ببديل التربية دي تعليم تودي ذي مخدوم منهج كودي جيو تربية دي تعليم تا وعيب نخدم كبيرة ويا قفك للدنيا وحلوديو مركب كوباد inaan laga gudbin aqoon isagoo aan sugin oo aan aqoon kale loo gudbin sidoo kale loo yareeyo aqoontan qofkii in hal mar 10 kitaab loo dhiibo dabeetana la yiraahdo ku hawlgal waxa ku dhacaya tashattu dihni waxa ku dhacaya fadaro fikir waxyaabo fara badan baa ku dhacaya qofkii rabo in loo yareeyo shariicadu wala yareeyo oo jireen Soomaalida imanka koobad loo yareeyo waxa weeye aqoonti qodobka koobad qodobka labaad waa in ku celcelin jirtaa qofku waa in ku celceliyaa aqoonti uu bartay waayo waxaan kaga hortagnaa nisyaankii ilowgii oo bini'aadanka oo ah mararka qaarkood sifo saddex waa inaan ardayga lagu dhigin aqoonta uu baranayo barada eeg qofka marka uu aqoon baranayo waa inaan lagu dhibin aqoonta uu baranayo waayo ma lagu dhibin kow shakhsiyadda ardayga saameynaysa oo qofkii qof habowsan oo waxa weeye baqasho
iyo qof dhib qaba soo baxaya sidoo kale aqoontiina uu nacaya inta fara badan jiilkeena deemka jiilkan inaga yaryar ee hadda malcamada dhigtaa kulley iyagii waalidkaas jeclaaday baa la yidhahdaa malcamada mala aad buguma dilay laakiin jiilkeeni meesha la isku dili jiray waxay malcamada inta fara badan dabeetana dhibkaa fara badan ee qofka malcamada loogu geysanayo waxaa laga yaabaa inuu qur-aankiiba hadalka ilaahay ee watay manhajka uu waxa weeye noloshiisa oo dhan ku iftiisan lahaa inuu noco qofkii uu ka jirdiido laakiin barefadka jeclaada ingiliishta iyo carabda lagu dhigayo sababtuna wax kale maaha ee qofkii waxaan dhigayay ayaa adkaynaya dhibaya dhibaataynaya afar waa in qofka loo dhigaa manhaj dhammaystiran oo isku xidhan saddexna waa inu isla helaa waa dheelitirnaanta waxaa la dhigayo dhisnaanta baraha iyo dheefta soo baxaysa oo la tijaabiyey saddexda dheelitirnaan waxa loo dhigayo qofkan dhisnaanta baraha qofka dhigaya iyo sidoo kale dheefta soo baxaysa muqadimatu ibn khaldun iyo kutubtiisa kale kii uu kaga hadlayay tasawufka iyo waxa weeye inta kale mashruuciisa laga qoray si guud laakiin waa saas u yahay muqadimatu ibn khaldun ayaan waxaa wadaagaynaa su-aasha halkaa lagu soo qoray haddii aan isku dayo jawaabteeda waa in saddexdaas ay marka koobaad taxnaadaan dheelitirnaanta waxa la dhigayo dhisnaanta baraha iyo dheefta soo baxaysa ardaygana uu hamuun u qabaa cilmigan suuragal maaha qofku haddii aanu hamuun u qabin lagu qasbo qofku waa inuu isagu marka koobaad ka soo godaa inuu xambarto nuqdadaasi ama qodobkaasi ee bulshadana Soomaaliyeed inaynu ogaano inagu ka inteenan maqlaysa hadda halkan iyo inta kaleba waxay u tahay shardi si cilmiga qofka uu soo saaraya uu hadhow noqdo cilmi uu ka majaal dhiganayo maanta haddii aniga la igu qasbo tusaalahan kale cilmiga diraasaynta xisaabta Yusuf Abdifataax baad uga hadlay ma jecli xisaabtii ma jecli anigu laakiin haddii la yiraahdo meesha joog ku gal shaqaf la'aan waxaan soo saarayaa halaan loo geeyay saddextan waayo wixii baanan u haynin xamaas iyo xiisi marka qofkii loo daayo wixii uu aqoonta iyo cilmiga u lahaa hamuuntana u qabay tashanaada ugu dambaysa waa in loo dhugman yeesho hibooyinka ardaygu leeyahay marka uu barbaarayo oo soo baxay in haddii uu qof jiro hibo ilaahay marka koobaadba ku suntay oo muuqata inaan lugta lagu istaajin oo la baabin ee la bacrimiyo la beero si ay hadhow kaalin iyo meel uga soo baxdo laba marxaladood buu qaybinayaa tarbiyada tacliinta qofka soo koraya waa marxaladda koobaad intii aanu qaan gaarin wuxuu leeyahay ibn khaldun waa inuu bartaa qof intii aanu qaan gaarin quraanka kariimka iyo asaasiyaadka hoose ee diinta marxaladda labaadna waa inuu bartaa cilmiga maadiga iyo cilmiga diiniga wixii takhasusiyaad gaar markaynu ablaablayno waxa laga yaabaa inaynu soo saarno fikrad kale caadi la isku dhex dari karayo xataa soo qofka quraankii wada cilmiga maadiga hana wadi karayo laakiin waa fikrad uu aaminsan yahay ibn khaldun in qaabka loo kala qaabeeyo qabla albuluuq intaanu qofku qaan gaarin inuu barto quraankii iyo asaasiyaadkii kale ee diinta laba inuu qofkii barto marka uu qaan gaaro cilmigii kale maadiga iyo diiniga balaha diraasada uu diraasaynayay ibn khaldun tarbiyadii tacliinta waxay ku biyo shubanaysaa fikradii guuday waday ee ahayd dhisidda iyo dhismaha bulshada iyo axmiraadda dhulka tarbiyadii tacliintu waxay dhammaanteedba ku biyo shubanaysaa dhismihii qofka dhismihii deegaanka iyo sidoo kale waan dhamaystiray dad maasantay waan dhamaystiraya iyo dhismihii qofnimada qofka oo saasay isugu xidhan tahay halkaas baynu insha allahu tacaala ku istaajinaynaa mashruuca aqooneed iyo aragtiyo cilmiga bulshada aynu naaqishaynay aynu kaga soo hadalnay ibn khaldun aragtiisa ku aadan dhismaha bani aadamka isagoo qaab deegaan soo ablaableeyey dowladnimadana ka hadlay sidoo kale aynu kusoo gulaaradnay tarbiyadii tacliinta wuxuu ka yidhi tasawufku warqadii 30 biija ee asxaabta ay soo direen way ku jirtaa waxaan u arkay markii tasawufka aan usoo qaadanayay ibn khaldun waqtigoo yar awgeed baan uga tago waxay diyaarsanaa wax ku dhidhow 30 warqadood kaas suuragal bay noqon weyday 40 daqiiqo 30 warqadood sidii aan isu siin lahaa laakiin tasawufku waa muhiim marka uu ka hadlayo ibn khaldun waayo wuxuu arkaa inay qayb ka tahay dadkan ishaysashadooda haddii heshiis la dhigto ilaalintiisa haddii la wada noolaanayo wanaagooda waayo waa la dahiraya wixii qofka halkan ugu jira waa la dahiraya waxaa soo baxaya qof damiir leh qof nool qof aan cid khiyaamaynin kida marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin saaxiibayaal dhegeysigiina habboon aad baa mahadsantihiin mahadsantahay ustaad aad u mahadsantahay runtii waxaan lagu soo koobi karnaa saacada ayaa lagu soo koobtay saacad
ustaadka si guud wuxuu noogu qaada dhigay cabdiraxmaan ibnu khalduun aragtidiisa cilmiga bulshada gaar ahaan 3 aragtiyood oo muhiim ah oo aragtida ku aadan dhisidda dadka aragtida ku aadan dowladda iyo ugu dambeyn aragtida tarbawiga ama waxbarashada ama tarbiyada maxay ahayd oo hadda qaybteena labaad aan gudageli doonaa oo dhanka su'aalaha ama comments-ka faalooyinka ah waxaan ka codsanayaa qof walba inuu diiradda saaro su'aashiisa ama faalada uu bixinayo hadalka dheer waqti aad u badan uma heno marka waxaan rajeynayaa sida aad gacmaha ugu kala horeysaan raise handiga in yacni aan idinkugu tixgelin haddii ila yiraahdo marka qaybtaas labaad aan geli doonaa soo dhawaada waxaan kusoo dhaweynayaa Shucayb Xaraf. Shucayb iska qaad miid. Kawsar iska qaad miid. kawsar dhimbal mana maqashaan waana maqlaa inaad u mahadsantihiin codkaaga kor u qaad adoo mahadsan codkaaga kor u qaad aad baa idinkaga mahadcelinaynaa ciwaankan quruxda badan waxaa rabay ustaadka inaan weydiiyo hal su-aal marka uu ka hadlayay dowladnimada iyo waxyaabaha bulshada isku haayo waxaan weydii rabay ma jiraa qodobo si waxyaabahaasi bulshada isku haayo loo ilaaliyo ay muhiim tahay in la ilaaliyo qodobo ma jiraan si waxyaabahaas bulshada isku haayo aysan u furfurmin kadibna dowlad la-aan aysan dhaladin baas loo ilaaliyo qodobo aad dhiileed aqoon in qodobadaas la ilaaliya si bulshada iskugu sii xirnaato aad iyo aad u mahadsantahay adaan mudan xamse soo dhow xamse miidka iska qaad اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. marka hore waxaan salaamayaa ustaad Meegaag runtii nala wadaagay waxa weeyaan runtii aragtidii ibn Khalduun ee dowladnimada iyo tarbiyada iyo tasawufkaba magaca waa Xamse Maxamed Jaamac waxaana xubin ka tirsan ururka Dalaa'ib Naxdar ee Suudaan baan nahay dabcan waxaan doonayaa inaan in yar taaliqiyo ustaad aragtida dowladnimada ibn Khalduun marka laba qodob baan doonayaa yara dul ordo insha Allah taala waxaan rajaynayaa taxliiqisana jazakallahu khair adoo mahadsan waxa weeyaan dabcan marka laga sheekayna aragtida dowladnimo waliba tan waliba marka laga dowladda nabawiya marka la eegayo dowladda nabiga xaysan marka la eegayo laba aragtiyo caana jira mid waxa weeyaan waa aragtidan النظري يعني النظرة التبسيطية وابن خلدون aaminsan yahay معنى ابن خلدون wuxuu arkaa dowladda nabiga inaan ahayn dawla بمعناها الدولة الحديثة inaan qolahayn xilliga dowladda marka laga sheegayo dowladda nabiga عليه السلام laga sheegayo kale يعني xambaarsanay magacaan xambaarsanay طبعا waxa la aaminsan aragtida بعض المستشرقين baa aaminsan laakiin waxa jirta aragti ka duwan oo aaminsan الإمام الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية في النظام الحكومة النبوية وعامسن yahay waliba naska hadaan akhriyo waxa aaminsan yahay wuxuu yiraahdaa garan maayo qofka aan garan cadamada dawladdaas ay leedahay illa man wasala laylahu binaharo waطalaca bidiqqatin wa husn ar-rawiyati وهي مشكلته marka hiya يعني عدم الاستقراء والله si dhameystiran loo wada akhrin taariikhii siirada nabiga عليه الصلاه والسلام فلبدا aragtida talo dabcan وانت متخصص يعني في تراث ابن خلدون وكله ان ديار كلا قادين ده ارجو لك ان شاء الله مزيد من التوضيح هناك القضيه الاخرى هي القانون العصبي ورك شكل ابن خلدون وكله معنى قانون العصبي وحنا سلي ابن خلدون لفته حبه هي مفهوم كان خوغاين لا يرى بلاariyo waayo ابن خلدون ورك شكل قانون العصبي wuxuu aaminsan yahay yani wuxuu ku eegayaa cirqinimo nadar cirqinimo ayaa ku eegaya macnaheedu waa dawladda ku saleysan noqonaysaa cirqi ku saleysan ayay noqonaysaa laakiin aad waxay noqon kartaa marka casabada nukhbay noqon kartaa shariixay noqon kartaa macni wax walba qaadan kartaa casabadu shay ku kooban ma noqon kartaa qabiil ku kooban noqon karo meeso waxaan filayaa labada yara taaliiq kooban ma doonayaan ustaadku yara taaliiq jazakumullahu khair assalamu alaykum aad baad mahadsantahay xamse xamse aad baad u mahadsantahay Shucayb iska qaad miid adoo mahadsan hadaan waasha السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أذكر قاضي أستاذ الإسلام يا أستاذ ميجا
akhyaarta kale ee barnaamijka ka faa'iidaysanaya isku salaamaya ustaadka hal su'aal baan weydiin lahaa su'aasha ibn khalduun qarni hore wax qoray ma jirtaa aragtiyaha uu qoray cilmiga bulshada ku saabsan ibn khalduun aragtiyo uu ku fashilmay ama faashil noqday aragtiyaas uu qoray waqtigaas maan aragti hadda haddaan joogno fashilantay oon aragti maaragtay cilmi bulshada dib markii dee aqoon badan iyo cilmi baaris badan iyo dabeecado badan iyo arrimo bulsho badan la baaray faashil noqotay aragtidaas oo ibn khalduun qabay waa su'aadka weydiinayo tangalada ninka ugu dambeeyay kitaabka magaciisa raba inaad noo sheegtid dhacday wuxuu ka hadlayaa marxaladda ilaa uu ka gaaro marahaqa qofkii uu ka gaaro kitaabkaasna jeclaan inay noo sheegtid aad waan salaamayaa anoo dadka uga faa'iideynaya waqtiga intaas ku koobiya su'aal aad u mahadsan tahay asxaabta waxaan ka codsanayaa su'aalaha inay aad inoogu soo koobaan teeda kale dadka su'aalaha hore u weydiiyay waxaan ka codsanayaa inay gacmaha hoos u dhigaan raise handiga maadaama waqtiga aad noo kulaalaya marka laba round ee keliya laba wareegan ka dhigan doonaa ustaadkan kusoo dhaweynaya su'aalihii saddexda qof ee weydiiyay inuu ka jawaabo ما قال يوسف ها استاذ سلوم اوكي بسم الله الرحمن الرحيم horta aan ku bilaabo su'aashii walaashii koobaad ahayd miyay jirtaa casabiyada wax isku siyaan karaya haddii aynu aragtida ibn khalduun ku eegno mise haddii aragtida aynu hadda ablaableynayno ku eegno haddii aynu teena ku eegno waa baab laakiin ibn khalduun sidiisaba wuxuu dhigay xeer weyn oo ah dowladnimadu waqti bay leedahay ay dhisnaato xuduudeeduna ay adkaato waqtiga kadibna way dhacaysaa la maxaala oo saas seerkal buu dhigay ah dowladdii waqtiyada ama heerarkii shanta ahayd soo marnay bay maraysaa waqtiyada mid kastaba waxaa ku dhex jira baa ku dhex jiraya waqtigu doonaha qaatay dabeetana waxay ku soo dambaynaysaa in dadka wixii isku hayay uu yaraado oo fududaado sababta keenaysa inuu yaraado fududaano waa dadkii inay helaan nolol oo taxadiga ciddii ay kula jireen yaraado mar haddii dadku ay dowladnimo dhistaan imka inteena meesha wada jirta haddii cadow nala wada sameeyo way adkaanaysaa fikradda isu keen haysaa walaaltinimadeena iyo jacaylkeena uu xoogeysanaya laakiin markastoo ay yaraato cidda cadowga tooska inoo waxa dhalanaysa in meesha ay kasii fududaato fikraddii weynadeena isu keen haysay laakiin haddaynu sidaynu u ablaableynayno waqtiyo kaleynu gelin doonaa insha allahu tacaala maxaa dadka wixii isku hayay adkeeya oo sii waariya su'aalaha ustaad xamse aad baan ugu mahadnaqaya marka koobaad horta ibn khalduun aad buu u diraaseeyey dowladihii jiray kasoo yaal ahaan fikraddan iyo fikradda ugu dambaysana waan isku xidhayaa muxuu ku fashilmay ibn khalduun aragti buu dhigay nadariya oo shakliya dowladdii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dowlad bay musamaana laakiin waxaa laga yaabaa magaca loo isticmaalaya addawla ka mafhuuma dowla kida in magacyo kale ay yeelato dowlad maxamed oo kale aanay noqon alayhi salaatu wasalaam laakiin magacyo kale alkhilaafa iyo alimaama iyo annubuwa magacyadaas oo kale oo de waqtigii ay soo taxnayd cusuurtii waxa weeye cusuurtii ay khilaafada islaamiyu jirteen inta badanna magacyadaas ay isbedbedelayeen oo de in badan ay ku diraaseeyeen culimadu xataa yuusuf qardawi kitaabkiisa ku diraaseynayay magacyada iyo maxamed alcamaaraba magacyada iyo qaabkeebaa loo soo celin karayaa khilaafa magac mushkiladu magacay ka taagan tahay mise waxay ka taagan tahay mafhuumka kulliga ibn khalduun aragti buu dhigay nadariyad ah oo dowladnimadu ay ku hana qaadi karayso meeshay doontaa ka dhisnaato dowladnimadaasi cidday doontana ha u dhisnaato innagu taynu ka hadlaynaana waa nadariyada dowladnimada ee kasoo dhaqaaqaysa heerarka ay marto waxyaabaha ay ku qumatay ee saddexda qodoba ilaa intaynu imanayno waxyaabaha joogtada aynu keenayno markay joogtada timaado waxay imanaya markaa inaynu inagu hawshii galno oo joogtadii ablaablayno aynu qaabkaa u saarno marka ibn khalduun inta aan anigu kolleyba muqadimadan waan akhriyey شفاء السائل وتهذيب المسائل iyo kutubta kale laga qorqoray الفكرة التبوي عند ابن خلدون iyo diraasaad fara badan oo ibn khalduun inta fara badan soddonkii beejaan soo diray maraajaxaan aan uga dhigay ibn khalduun xooga saaraya nadariyada dowladda isku xidhan waana sababta keentay ajiyaashii dambe inay kaga taasuraan habka uu eegayo dowladnimada oo de nadariyada maalan ninka uu eegayo uu leeyahay aflaatoon almadina alfaadila uu kala saaraya saddex qodob uu leeyahay mujtamaca halka sare ha noqdaan falaasifadu qaybta saddexaadna junuud qaybta ugu hooseysana mujtamaci uu macalliya alkidb albaydaa inuu sheegna inay falaasifadu ka samaysan yihiin dahab waa nadariyadii dowladnimada ee uu ku taasuriya alqadiis agustiin marka ibn khalduun inaga ta muhiimadda imikayno aynu muhiimka u arkayno markaynu ka hadlayno dowladnimadu waa aragtidiisa nadariyada dowladda u arkay talabaad waan kula qirsanahay casabiyadu inay ballaaran tahay
ibnu khulduunna inta fara badan casabiyada wuxuu u socday inuu ka dhigo alcasabiya bimafhuumiha alcasabiya bas yani qodobaynta hadhow casabiyada casabiyadaas ma diin baa loo haya ma dad gaaraa loo haya ma fikrad baa loo haya ma heshiis baa loo haya inta fara badan kuma habsaamayo wuu faallaynaya laakiin kuma habsaamayo waayo wuxuu aaminsan yahay wax kastoo bulshada isku hayn karaya oo marka la yidhahdo waa wixii dhammaan dadkao dhan usoo istaagi karayaan dhiig iyo dheecaan la huri karayaan inay casabiya gelayso waana tii keentay markuu faallaynaya xataa dowladda nebi maxamed caleyhi afdal salaatu waatama tasliim inuu ku faalleeyo adaygii fara badnaa ee muslimiintu hayeen diinta alcasabiya diiniya inay keentay inay dowladda madiina ay waqti yaroo kooban ay meel ku gaadho walaalka saddexaad markaa waan aaminsan in casabiyadu ay ballaaran karto casabiyadu ay ballaaran kartaa mafhuum alcasabiya waxaana ka qoray kitaab aad u weyn casabiyada waxaa ka qoray hadduu alla ku idmayo rasuufkii way ku halkan daqiiqa waqtiga haddii ii saamaxayo khulduun imraal bashari dib baan kasoo sheegayaa fikradda casabiyada ciddii wax ka qortay ibn khulduun walcasabiya nuqdo saddexaad haddaan u imaado fashalka miyuu jiraa ibn khulduun fikradiisa wax lagu fashilmay dabcan taxaaliisha gaar buu ku fashilmay ka fikrad ahaan tusaalahaan saddexdii aan isku xidhaynay angalada uu wax ka eegayo afeeftina kule way ka jirteen waa angalo saxa laakiin waxa uu ku dhex guraya waxyaaba fara badan baa ka qaldan ibn khulduun oo tusaalahaan gal markuu faallaynaya afrikaanka qalad fara badan buu ka gelaya waxyaaba fara badan buu ku sifaynaya wacyiga afrikaanku inuu aad u hooseeyo iyo waxyaaba kaloo la halmaalo oo taxaaliila marka taxaaliishu ibnu khulduun dhigay wax fara badan baa ka qaldan laakiin habka iyo angalada uu doonaya inuu ka soo galo ayaynu rabnaa innagu inaynu ka qaadano hadhowna ablayno aynu meel ku gaadhsiino saddexdaa su'aalood baan maraya taqriiban kitaabka ahaa uu ku sheegay ibnu khulduun in waxa weeye qaabka uu qaybiyey waa kitaab muqadimada ku jira wuxuu ku jiraa chapterka muqadimada لكن وحنا كسر ديكت الفكرة التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق دكتور عبد الأمير شمس الدين الفكرة التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق دكتور عبد الأمير شمس الدين كتاب كاسو أيوك قرين قاب كهو بلا بلينيو ابن خلدون فكرة التربوي جا قيمنا كردي أيو وقت جا قانجار كور قيمنا كردي قانجار كور أستاذ هذا ما سنتهي وقتي وأدنى كل علي وحن شو دبيني مشاهدهم waxay laba qof kaliya inaan qaadanay noqon doontaa waqtiga aad noo haye haddii inu maqlo cabdishakuur soo dhow yudka iska qaad السلام عليكم مالي مغلى waa ku maqalnaa ku soco aad baan idin salaamayaa bahda barnaamij soo qaban qaabisay iyo ustaadka barnaamijka keedinayo ma dheerayna hadalka laakiin hal su-aal baan qabanaya su-aashaa qaba waxay tahay markii lagu qeexo dowladnimo ashkur waxaan u malaynaya khadkaa ka ducay bal waxaan soo dhaweynayaa hanga hadduu na maqlo inuu iska qaado mute السلام عليكم أدوان السلام يا يوسف يا أبتي مجال سؤال ويديني واحد هاي أبتي والله أنا آخرين بوجا مقدمة ابن خلدون أيضا في عنا نقدي كبحث هذا آخرين ساعدنا علمي بالشدة يو سؤال كيس بدنا مركان آخرنا طبعا والله كل ما يساو ابن خلدون ميلاد معركة وجبوا دوم شرط هذا علمي بالشدة سلطان هذا ما سؤال مقبر وسوكوبيا أبتي مثلا نظرية وقبا ابن خلدون بقول يلا تنكسر مثلا إنه كل شيء جاي دولته يعني وقت قاعدة معنا يسوى حد ما ليسين يعني تصبح خلدون هذا نحو وحكم مثالي معركة يوقف كي بالآذان كاب وحكم مثالي دولتي أو يعني جبوبي دلني دن يرد النقلية دن جبوبي دن دمني صلوات تاسم صحبة أدون إسلام يعني سؤال أنت سمعت كوبين وقتي أدنى هاي
meedaad mana maqashaan cilada ma dhankaaga mise waa dhammaanteen hello mana maqashaan Abdifataax mana maqashaan Yusuf Abdifataax waa ku maqlaasaan iga raali ahaada waxaan ka nadka cuslaaday markaa waxaan yimi su-aasha keliya ta abtiyo sakariye ah gebi ahaanba waa qalad dowladdan qaabkan uu dhigay adwaarteeda maxayn ku faalaynaa su-aashaasaan yimi markaa iga raali ahaada su-aashii hore ma maqlaynin Yusuf Abdifataax baa igu celin doonaan ka jawaaba su-aasha abtiyo suldaan abti kolley qaabku u dhigay ibnu khulduun inay dowladnimadu ay 120 sano cumrigeedu jirayaan waa qaab istintaaj isagu gaadhay waan ku waafaqi karaynaa waan ku khilaafi karaynaa ma wax meel yaalla oo qoran oo dabeetana aan ku gowracanahay qaadashadeeda laakiin waa inaan fahnaa waayo uu yiri ibnu khulduun 120 sano ku ismantahay fikraddu waa taa haddii aan isku dayno inaynu bal ablaablaynaaba ka jawaabno istintaajka uu ku gaadhay 120 sano cumriga dowladdu weeye waxa uu ka bilowmayaa inuu dhigay marka koobaad dowladnimadu waxay ku dhismayso oo daakhiliya oo ay ka tahay casabiyadii laba ka tahay waasicii diiniga hay akhlaaqigii iyo hadduu alla ku idmayo qodobkii saddexaad ee uu ka dhigay inay tahay arrimaha ka dhaca qofka duunkiisa ee dowladnimada ay ku istaagayso labada haddaynu kasoo qaadano ta saddexaad iskaba dhigna meel ee ah casabiyada iyo waasica diiniga akhlaaqiga wuxuu aaminsan ibnu khulduun si aynu ogaano 120 sano waayo uu ugu asteeyey inaanay taasi waarin casabiyada mawduuc loo hayaa ma waara buu leeyahay jiilku marka uu jiil u dhiibo imka tusaale ahaan oo kale haddii aynu qaadno jiilkeenna hadda noo 2021 ayaa waxaynu fikradda qowmiyadda Soomaaliyeed baynu waxaynu u qaadnay adayg fara badan iyo casabiya fara badan baynu u qaadnay qowmiyaddii Soomaaliyeed baynu ilaalinay dowladnimaynu ku dhisnay jiilkay naga dambeeyaan shucuurkii aynu u haynay ee adkaa uma haynayaan buu leeyahay waayo waxa loo keenay dowladnimo diyaarsan laakiin weli waxay hayaan sooyaalkii loo maray dowladnimadan diyaarsanay jiilka saddexaad laakiin maba fahansana xataa sooyaalkan loo soo maray dowladnimadan jiilka afraadna lamid waa kan baashaalkii boodboodkii iyo ku takrifalkii iyo isku kaliyaalka kalitalisnimadii waxa weeye ka dhiganaya asaas marka sababtu ibnu khulduun u leeyahay 120 sano baa lagu ismaynayaa dowladnimadii kadibna way buraysaa wuxuu leeyahay ma waari karayso casabiyadu ma waari karayso dunta akhlaaqeed dadka isku haysta maadaama ladnaan fara badan imanayso oo taxadigii dowladnimada lagu jiro uu yaraanayo oo ay baaci dowladdu ay lahayd ballaaranayo soona baxayaan dadaan fahansanayn dowladnimada iyo wixii loo soo maray dabeetana waxa dhalanaysa buu leeyahay ibnu khulduun waanu sheegayaa tusaalayaal fara badan oo dawaanigi lahaa markii koobaad wuxuu diraasiyey min dowlad maxamed cali aftar salaatu wa tamu tasliim iyo xataa dowladihii kale ee ka jiray Afrika ayuu diraasiyey si uu ogaado in dowladnimada marka koobaad ay aasaasanto cidda loo dhiibayo iyo cidda loo dhiibayo labaad iyo cidda saddexaad cidda afraad marka la gaaro aanay fahansanaan karin banihaayiyan waxa uu yahay dowladnimadan iyo sooyaalka la soo maray marka way saxsanaan kartaa waana qaldanaan kartaa laakiin aqliyadu ku dhigay baa faham u baahan aqliyadu ku dhigay ee ah suuragal maaha in arrimaha gudaha ku jira al-canaasir al-macnawiya inay waaraan jiil iyo jiil iyo jiil taas waa taa Yusuf Abdifataax su'aashii hore igu celi walaal maadaama aanan maqlayn su'aashii kale si fiican ugu maqlin qadka ka wada go'ayba si fiican ugu maqlin waa okay waxaan rajeynayaa inuu suldaan hango qoray weydiiyo su'aasha si fiican aad u mahadsantihiin waqtigu aad noo kulaalay waa iska soo jawaabin doonaa aad baan idinkaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan marka aad baan idinkaga mahadcelinayaa Amira waxay weydiinaysaa canaasirta kale maxay noqonayaan waxa laga yaabaa fiidiyogeena markay ka baxday canaasir macnawiya Yusuf oo iga raalihan inaan ka dhex galay عناصر معنوية iyo عناصر مادية بينري عناصر معنوية هو تاين كسو شيغني عصبية دي وازع ديني أخلاقي إنه جرو عناصر معنوية أو إن جرو يدد دولة أي كوهر كشاف عناصر لبعض دم استريا وتصدح هذا أو إن له عيدا عدد ديدت كأتكية iyo adduun maal iyo tasaddaxaad oo hadduu ilaahay ku ismayo leeyahay cadaalad in cadaalad la helo oo dadkii haddii dulmi meeshii yimaado dowladnimadii baxday marka saddexdaa qodob buu u dhigayaa inay yihiin asaaska dowladnimadii canaasir maadiya macnawiya iyo canaasir muktamila lihadi alcanaasir almaadiya walmacnawiya aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay baalkin naydo aan laga yaabaa waqti daqiiqadahan soo xiya marka aad baan ka mahadcelinaa soo qaybgalkiina kulankan kulan xiga aan kulmi doonaa rajeynaa insha allah bidnillaahi alkariim